kudhawaad 400 ganacsato yar ah ee soo koraya ayaa maanta ka faa'iideystay barnaamijka Dhallinkaab taasoo soo qabanqaabisay bangiga Amal mashruucan oo loogu magac daray diyaarinta ganacsatada berri ayaa daafurkiisa waxa ka qayb galay xubno ka socday dawladda dhexe iyo maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdi Maxamed gudoomiyaha bangiga Amal ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo Cabdullaahi Axmed Xaaji madaxa suuqgeynta bangiga ayaa sheegay barnaamijkan ka faa'iideysteen dadkii ku haboonaa si loo kabo ganacsatada yararka ah Amal Bank waxay maanta idinku soo dhaweynaysaa mashruucan qiimaha badan oo aad iyo aad qiimaha ugu leh bulshada qaybaheeda kala duwan waa mashruuc waxay haysaa Amal mashaariic noocan oo kala ah oo wax tari kara qofka qoyska ganacsatada yaryar kuwa waaweyn qurba joogta iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxa eligible u ah amaba ka qayb qaadan karo dadka dhalinyarada ah oo da'doodu ay u dhaxayso 18 ilaa 35 dhalinyaradaas waxay noqon karaan ugu badan kuwa jaamacadaha ka soo qalinjabiyey iyo dhalinyaro hore iskugu dayay ganacsi oo ganacsi yar haysto gudoomiyaha guud ee Amal Bank Cabdiweli Muuse Maxamed iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Camar Shakeeti ayaa si wadajir ah u dhiirigeliyay in mashruucan uu noqdo mid sii socda isla markaana maamulka gobolka Banaadir uu garab taagan yahay kaliya ma aha inuu qofku uu baaratay uu shaqo uu ka helo shirkad iyo hebel wax ka horo waxa waa suuqa in la galo way in suuqa laga faanana ma aha in waxa weeyaan tabartaada waxay tahay baaratay aqabatid way oo inuu Amal wax qaado wixii soo celi dadka qaarkiina ha noqonina qaar waxa jira runtii intay wax qaateen wixii soo celin waaya oo rabo inuu maartay ama uu xagga kaga taariibo baadu doonaba marka inaan noqotaan kaabayaasha kaabaya dalkoodii horumarinta dalka ka qayb qaadanaya Amal Bank waxay samaysay sida hadda nala sharaxay dhowr qaybood ganacsiga mid aan la soo celinayn sida noo sheegeen qofka lagu caawinayo inuu asaga lahaado laakiin uu ku shaqeysto oo san burburin uu noqdaa mid bari asaga bixin kara mid kale walaalkiisa inuu gacan qabto wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Sadiq Xirsi Warfaa ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ku amaanayso doorka ay bangiyada ay ku leeyihiin horumarka dalka marka Amal Bank barnaamijkan Dhallinkaab waa laba eray weey in dhalinyaradii oo ah dalka mustaqbalkiisa dhalinyaradu seeftaas labada leeyahay maxaa leedahay marna sida hadba sideeda ay ku isticmaali kartaa dalalka qaar way duqoobeen oo waxay leeyihiin maxaan dhalinyaro u helaana annagina nasiib maanta 75% Soomaaliya dadka jooga 35 sano ay ka yar yihiin Cabduqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho